السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا qiimaha ay qadarinta mudan oo kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta hadii ay habeen ku tahay habeen wanaagsan hadii ay maalin ku tahayna sidoo kale maalin wanaagsan inta xanuunsan Ilaahay caafiyo inta murugaysan Ilaahay murugta ha ka dulqaado kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan markaas kaga hadli doonaa xadiiqooyinka ugu qurxoon magaalada Qaahira ee dalka Masar xadiiqada koowaad waa xadiiqatu dawliya waxay ku taalaa Madiinatu Nasri ama Nasri City gaar ahaan wadada Abbas al-Aqad waana meel aad u qurux badan caruurtana u roon qiimaheedu ama ticketka lagu galo shakhsiga waa 10 gini waa markaa lacagta dalkan ama 10 pound hadba qofka sida uu u yaqaano waa lacag gaarayso $9 ilmaha marka 4 sano ka yar waa lacag la'aan xadiiqada labaad waa xadiiqatu xayawaanaad qiimaha markaasi ticketka waa 20 gini ama 20 pounds maalin walba marka laga reebo maalinka Talaadada ah 20 pound ama 20 pound waxay u dhigmataa lacag $1 ah waxayna ku taalaa xadiiqadani Giza xadiiqada saddexaad waa xadiiqatu Kaltum waa meel aad markaas u qurux badan waxayna kaabiga ku haysaa webiga Niil taas oo bilic soo jiidasho leh qiimaha marka lagu galo xadiiqatu Kaltum waa 10 gini oo marka gaaraysa $9 beerta Kaltum waxay furan tahay 9 subaxnimo ilaa iyo 10 habeenimo oo marka ah 4 saac habeenimo xadiiqada u dambayso waa xadiiqatu Al-Azhar qiimaha ticketka xadiiqatu Al-Azhar ee dadka waaweyn ee masaarida ah iyo sidoo kale kuwa aan masaarida ahayn ee ka weyn 12 sano maalmaha Sabtida ilaa Khamiista qiimaha ticketku waa 25 gini oo ah yani lacag gaarayso $1 bar qiimaha ticketka caruurta da'doodu u dhaxayso 4 sano ilaa marka 12 jirka Sabtida ilaa Khamiista qiimaha ticketku waa 15 baan oo marka u dhiganto yani $9 maalmaha Jimcaha oo ugu mashquulka badan ticketku waa 30 pound dadka waaweyn halka ticketka caruurta uu noqonayo 20 gini waan filayaa inaad ku qanacday muuqaalkan intaan ku kulmi doono muuqaal la mid ah waa Cabdullaahi Macruuf oo idinkaga tagayo sidaa iyo nabadgelyo.